saaka waxay u egyihiin ciidaas gaduudan bay u egyihiin ma ka gubtay ma dab baa ku galay dab baa la ii qaatay ayax wax la yiraahdo oo dabadiisa la gaarin baa dhulkii dam ka siiyay kow naaye warba mayso naasunta ayaxa lagu buufinayay waa la helay wasiirka beeraha habeen dhaweed ka hadlay wuxuu yidhi kuwii dhabarka lagu qaadayay iyo qalabkii casriga ahaa iyo diyaaradii xitaa waa darnay isbuuc ama beri ama saadaba ayaa la buufinayaa ayaxi warba nahaysid ama waxay leedahay ayaxi iyo wixii dhulka daaqay oo dhan badigadaas digada laga dhigayaa baan ku waryaare anu waxaan maqli jiray ninkii ku noolba wax siiso nin martii hore ku soo heday baa goor waagi soo baryayo naftii haysa le caanaha dhan adeer ninkii ku noolba siiso yiri geed ma dhaqno caleen ma dhaqno oo xitaa digadii ma dhaqno oo beeru ma dhaqno maraadkiisa la buufinaya war maya waxa la buufinayo waa ukumihii oo ka tagay waayo waxa la buufinayo maxaa idin helay ukumo iyo cayayaan iyo waxyaabo daran oo ka tagay maxaa mar hore loo buufin waayay ma markii aanu ayixi qaxinay aanu xuduudka ka saro Kenya gelinay miyaa hadda la leeyahay diyaarado ayaa la keenay haddiina la ka buufiyo oo hadda roob noo soo daa dib buu noogu soo baxaya intuu naga cuni lahaa la ka buufiyo war waa runtiine haddii markii hore laga hortagi waayay oo aanan markii hore awood aan uga hortagna aanan lahayn alxamdulillah hadda awood aan uga daba tagnaan helan qolada sunta keentay anigu maba abshiraysana jawaanada baan hadda tulana wax la wixii jawaab magaalada yaalay baan soo aruursaday adeer ayaxa maanta Soomaaliya jooga oo 6 bilood waxa weeyaan dhulka garaacayay ninka jawaanada u soo tashay waa nin rutooga shaah ku cadaystay dadka hantidoodii buu cunay hal sumeeyay bahalkii naga daa hey waa in loo istaago sidee loo afjaraa ayaxa waa in loo istaagaa 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 sidee loo afjaraa adeerow daal badana oo dhib badana oo inkaar badana wax allaali wixii shaqo aynu qabsan lahayno hawl aan lahayno carruur annaga aan u qaban lahayn dhib baa naga haysta CID baan tago waraaqdii farahaan u baaray baasaboor baan rabay aan carruurta ku kacaysto 7 maalmood baa saa isaga daba noqonay sida korokoradii baa dadku saa isu saarayay wax baa ka jira ma aqaan ma shaqo xuma meesha ka jirta ba dadkii baa fara batay garan maayo 7 maalmood kadib markaan soo qaatay tii waxa igu daray immigration hadana baasaboor ma iyadii baa 7 kala hadana fayl u gala war heeda wax ma ogida goorma kuugu dambeysay adiga na 7 ka hor baa igu dambeysay 7 ka hor waxaad ogaataa cabashada dadweynaha dawladdu waa u dhaga furan tahay hadda ka bacdina wixii kugu dhacay maba dhacayaan sababtoo waxaaba la furay baranjiyaal badan waa runtaayo waxaad ugu dartaa hadda ka bacdin degmadiisa uu ka qaadanayo baasaboor iyo wuxuu u baahdo insha Allah qof kastaba waliba ku darso taliyaha boolisku wuxuu yiri laantiisi ID-da ee faraha lagu qaadayay degmada lagu keenayaa mar dambe ku dhigtoonmaysi war heeda iskumaanay waxaan idin weydiiyay waa maxay waftigaan maalmahan gobolada wareegayo maanta tana jawhar ku sugan oo la sheegayo waxaan u maleynayaa inuu yahay kii NGO-ga wabiyada iyo waxaas daba socday NGO ma ahane waa guddigii doorashooyinka qaranka waxayna tagayaan gobolada dalka iyo degmooyinka siday uga dhaadhiciyaan dadweynaha Soomaaliyeed qaabka ay u dhacayso doorashada nagu soo aaday oo qof codka ahaa waka bilaash baad isugu haysteen oo isugu sacabatutee guddiga doorashada ma reerkaygu iiga soo doonayeen duqaygii baaba ii jooga nin walba reerkiisa waa yaqaan cidda u dooraysa duqaygii baana ii jooga wareede waxaad ku dhagan tahay wixii hore laga tagay bahasha oday iyo qabiil iyo beel waa laga tago imika waa qof iyo cod waliba ku darso sanduuqi dhamaay oo guuraya waxa lagu ugu keenay gurigaaga iyo degmadaada iyo meesha aad ku nooshahay xornimaadna qof allaale qof kaartaad ku dooran kartaa mar haddii degmiyo tuulo iyo magaalo iyo gobol sanduuq iyo guddi isdaba socda ay tahay kolley aniga waxba iima taalle shacabkow qofkaad rabtaan doorta anigu kolley fursad ma lihi war guddiga doorashooyinku waa
go'aan federaal guddoonkii u sarreeyiyo golayaashu dhammaan giddigood isku raaceen gacmihii shacabka doorashada la geliyo tuulo iyo degmiyo gobol baa sanduuqa la geynin geedigeennu waa khayr waana guul insha allah haatana waxaan soo gaarnay xubinteennii maxaa sixid u baahan war waxaa sixid u baahan dirayska ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tuutaha loo yaqaano ee suuqa lagu kala gadanayo ciidanka dhexdiisana ay kala gadanayaan taasoo keenaysa inuu cadawgu ka faa'iideysto sixid bayna u baahantay war waxaa kaloo sixid u baahan qodobka la yiraahdo looma dhamma waxaaba sixid u baahan looma dhamma laftirkeeda sababtii keentay baa sixid u baahan oo maxaa keena taas 4.5 baa keentay ayadaana sixid u baahan oo tala anigu ayaa barhi maxaa taa lagu sixi karaa waxaa lagu sixi karaa in aan u dareerno doorasho qof iyo coda haatana waxaa la soo gaaray xubinteennii maxaad ku talin lahayd waxaan ku talinayaa ardada Soomaaliyeed ee wax baranaysa in la baraa taariikhda dalka iyo dhaqankooda weliba aan raacsadee ninkaasaan la qabaaya waxaan u sii raacinahayaa talada ardayda dal iyo dibad Soomaaliyeed meel kasta wax lagu barahayo mas'uuliyad dheeriya waalidiintu inay iska saaraan si loo baro dhaqankooda iyo diintooda iyo afkooda iyo historiga waddanka alla ilaahana aan ku sii daba qabsadee waxaan ku talin lahaa dhalinyarada baranaysa kulli siyaasiyiinta iyo waxa aan loo joognay wax kastoo dadka iyo dalka anfacaya inay bartaan oo siyaasad kaliya aan lagu mashquulin taasaan ku talin lahaa anna waxaan ku talinayaa in shacabka Soomaaliyeed ay cunaan oo daldalaan cunnada dabiiciga ah ee waddanku uu leeyahay ayna iska daayaan cunnooyinka dibadda kaga imaanaya oo uu ka mid yahay bariiska balaastikada ah waxay isku maana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya danlana ma yeelayno ku filan